واعلموا أن فيكم رسول الله. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أما بعد سود هذا ولا ليش قلبك برتي دشي sidii caadadeenoo ahayd waxaanu ka sii wadanaynaa siiradii nebiga halkay inoogu joogtay qaybihii hore waxaan kaga soo warranay qisooyin aad u qurux badan oo faa'iidooyinkoodiina aynu soo raacinay iyo waxaanu kala baxaynay waxaan aad uga xumahay asxaabtii daawatay wax faa'iidooyina oo hoosta noogu reebeen ma arkin waxaanan ka ahayn dhiirigelin marka hore aad ayaad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan ee isku kaaga garab taagan tihiin eed ii dhiirigelinaysaan iguna dhiirigelinaysaan in aan hore u socdo oo aanan marnaba dibteeda soo eegin allaha miisaanka xasanaadka idiin saaro jazaakum allahu kulla khayr haddaan mawduuceena u gudagalno wakhtiga oo inagu yar awgiis waxaynu ku joojinay marka ay soo degtay waylun lilmutafifiin waxaanaan isweydiinay maxay tahay cilaaqada ka dhaxaysa waylun lilmutafifiin iyo asxaabta guriga ibnu arqam ونبي صلى الله عليه وسلم وحكو برايو waxay tahay baan idin sheegayaa ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون waxay ka hadlaysaa suuradani miisaanka kala iibsiga miisida iyo wixii la halmaala waxauna allah u soo dejinayaa iyadoo xaaladda lagu jiro yani gaaladu ha dhahaan maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu la yimaaday ma aha wax khuseeyo kaliya ta meel waa wax qayb kasta oo noloshu ay ka kooban tahay tooshka ku qabanaya raadaarka ku iftiiminaya oo badhanka ku riixaya yani meel kasta qayb kasta oo noloshu ka kooban tahay waa mid daaweynaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam quraankan uu la yimaaday si loo dhaho ayuu ilaahay mar iibsugu galaya mar siyaasadda mar warka adduunka mar asxaabtu iimaanka iyo quweynaya garanaysa mar ilaahay isaga isbaraya aayadkiisu baraya subhanallah iyo qudradiisa subhanallah haddana waxa soo degaysa suuratul mutaffifin oo arrimahan ka hadlaysa subhanallah ibnu arqam saynu wada ogsoonahay wuxuu ahaa inan yar oo 17 sano jira subhanallah ibnu arqam 17 sano ayuu jiray ilaa 18 inta la gaarsiiyay imaam al-dhahabi wuxuu leeyahay 18 ayuu jiray adiga 17 bay inoo dheh 17 jirkaas goormuu dhintay ibnu arqam waxa uu dhintay isagoo oo 80 sano jira khilaafadii Uthmaanna uu soo gaadhay radiyallahu anhum jamiica haddaba uu dhintay 80 sano markuu gaadhay muxuu adduunka kaga tagay muxuuse sii hormarsaday aakhiro muxuu ilaahay u sii hormarsaday wuxuu hormarsaday albaabada gurigiisa ayuu u furay asxaabtii nabiga radwanullahi alayhim wa sallallahu ala nabiyina muhammad albaabka gurigiisa ayuu u furay oo uu ku hooyay oo waxay ka dhigteen meeshaas jaamacad ay raggu dhalay ay ka soo baxeen subhanallah ragga adag ma garanaysaa iimaankoodu la leeyahay de maxaan dhahaa koonkan universe-ka aduuna ka weynay subhanallah cirka iyo dhulka bay leeyahay raggaas guriga ay ka soo baxeen albaabadiisa waxa furay arqam ibnu arqam wuxuu sii hormarsaday albaabadaas khayrka uu furay subhanallah isagana ilaahay albaabada khayrku uu furay albaabada jannadu uu furay subhanallah albaabada wanaag oo dhan buu u furay subhanallah 16 jirkeena 17 jirkeena maanta kubadu ciyaaro TikTok naag nikinaysa ama nin nikinaya uu ka daawado iyo mataqaanaa waxyaabo ma la yacni prank iyo laba is haysata iyo laba dumar oo is haysta iyo laba nin oo is haysta iyo nin naagtiisii kala tagay iyo TikTok iyo budubadha iyo waxan ay ku mashquulsan yihiin halka qayrkood barigaas subhanallah albaabada guryahooda ay u furayeen si khayrku u socdo subhanallah markii uu مدينة نبي مادي صلى الله عليه وسلم قريش مهاجرين تاني راهده iyo wuxuu heshiis walaaleeyay yar dadkii Madiina degana ayuu walaaleeyay muslimiinta ahaa oo qaar baa xitaa intay haweenkoodii fureen walaalahoodan muhaajiriinta u guuriyay oo guriye dajiyay subhanallah isla degeen laakiin se arqam ibnu arqam nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay guri ha loo gado isaga guri ha loo gado isaga sababtoo ah Makka ayuu inagu hooyay gurigiisa subhanallah
subxaan allah darajadaas wuxuu ku gaadhay albaabada gurigiisa ayuu furay wuu u furay nebiga sal alla alay slam iyo intii aaminsanayd markuu nebigu guulaystayna nebigu wuu u abaalkiisii wuu u guday nebigu calayhi asalaatu wassalaam hadda nebiga sal alla alayh wasalam quraysh col caadiya ayay ka goosteen laakiinse nebiga garab ayuu haystaa oo adeerkii abu aalib ah subxaan allah 7 nin way ka mid yihiin وليد بن مغيرة أبو سفيان أبو جهل عتبة بن الربيع رق بدن أي كمدين تضبا أذيك تضبا دي قريش أقوى وينيد أيا أبو طالب ويمادي واحد هن أبي طالب إن كاغن أما أنك نجودا أما نجا قبضة إن كيرا أدرك وطاي نجا أمسي أما نودا نجا أمسيني أبي طالب وحكوده هاي ordaa iska taga way iska tageen markii labaad bay u yimaadeen waxay ku dhaheen warkii war soo dhaaf inan kan yar annaga nugu soo wareejay adigana waxaan ku siinaynaa waliid ibn muqayra inan kan uu dhalay oo inan aad u dheer oo qurux badan oo joof iyo jawharad bale oo magaranaysa maxamed ka aqli badan kana xigmad badan kana qurux badan ayaan ku siinaynaa ee bedelkiisa adigana waxaadna siisaa محمد سي أن أدلنا أدينا كان قاضو سبحان الله أبو طالب هو يستاجي وحكون هاي إذنك ماذا حماد ضب كربتان رايح أمر بلوغ ولا برجع ماذا حماد ضب كربتان بوداي سبحان الله إن كينا بان إذن كورينا يا عنتي إذن سينا يا إذن بحنانين يا إذن حنانين يا إن كي جنوا إذن كسورتشين يا أو ودليسان ماذا حماد ضب كربتان إنه كل جيادر وحس وظلم يعني قلنا إن الظلم قال مرة بو سكتجا way iska tageen eeg xaqu markasta isaga adkaada lagama adkaado xaqu isaga markasta guuleysta lagamana guuleysto subhanallah ciyaalkiina bara xaqa lagama guuleysto isaga ayaa guuleysta ku koriya caruurtiina qisooyinkan quruxda badan iyo mataqaanaa maskaxiyan ciyaalkiina u koriya subhanallah ha ku korinina fan broach iyo mataqaanaa filin hindi iyo Bollywood iyo heesa iyo raabara iyo waxan ciyaalkiina ha korjaasina hooyooyinka qaar subhanallah waxaan arkay muuqaal wallahi bari iga aan aad uga xumaaday aad uga naxay gabadh Soomaaliyeed oo surwaal intay xidhatay jaasaysa kaamirada intii soo dhigtay jaasaysa oo ilmaheedii yaraa intuu yimaaday uu go ku dadayay inta iska qaaday ku leedahay iga durub jaaska iska sii wadanayso subhanallah ilmaheedii yaraaba gartay hooyo waad qaawantahe waxan naga qari aaba iskale yaanan daadaba subhanallah ilmaheedii yarad wuxuu gartay ay iyaduna iyadoo inta la garan weyday hooyadaas allah dambigeena dhaafo aamiin dhaha adiga xaqu markasta uu guuleystaa ee lagama guuleysto xaqu markasta isaga ayaa calankiisu taagan yahay lagama guuleysto tusaalena waxa noogu filan Sumaya oo wada garanayna Yaasir oo xaas ninkeedii ahaa Ammar na inankoodii buu ahaa subhanallah Sumaya yaa dilay waa gabadhii ugu horeysay ee shahiiday Sumaya yaa dilay waxa dilay Abu Jahl النبي صلى الله عليه وسلم مركو صهر مريق يقول عقابي محمود يجري اصبروا على آل ياسر إن موعدكم الجنة أوكي سمية أودي لأبو جهل مركا ما إساقا أيا قوليستي مسا سمية يدا قوليستي سمية حقا أي كتاقنيد وضعيف ها أود أهان لكن أود وحي كل هايد حقا أود وحي كل هايد عقيدة ديدا أود وحي كل هايد فكر كذا سبحان الله إني إلهي قرطي قف كان إلهي أقوني وجاهل aqoontu doonaha la hado qofkaanan rabbigii abuuray afgaranin oo na fahmin wajahil maxaqa guuleystay mise waxa guuleystay baatilka xaq wuxuu ku guuleystay baan idin sheegaya wuxuu ku guuleystay maalintii badr la dilay Abu Jahl nabiga sallallahu alayhi wasallam Ammar ayuu yeeray kaale ilaahay soo kuma argudin buu ku dhahay waa kan ninkii hooyada ee aabaha jannada u masaafuriyay adigana ilaahay waa kan uu kaaga argudi سبحان الله محقق قوليستي مسابقات قوليستي سميها وي شهيدي جنة آدي لكن سيسقى أوردنتي وهو كافر عذابنا وقلي عياذا بالله حق أيا مركز تقوليسني عيال كينا برا مبدأ كصعدة كلها مبدأ كصعدة حق
ayaa mar kasta guulaysanaya haddii lagaa awood badan yahay haddii lagaa dad badan yahay haddii lagaa hub badan yahay adiga haddii aad xaqa ku taagan tahay adiga ayay guushaadu dhankaaga tahay taas inta dadka aaminsan maanta aad ayay u yaryihiin subxaan allah adiga markii saddexaad bay u yimaadeen hadal yaanan idinku daalinine toddobadii nin ayaa mar saddexaad u yimaaday abu aalib waxay ku dhaheen abu aalibow inankan yar ama waad naga qabanaysaa ama isagana waan la dagaalamaynaa adigana iyo qabiilkaaga reer bani hishaamba waan idinla dagaalamaynaa abu aalib hadalkaasi meel buu taabtay sidee hadalkaas ula imaan karayaan abu aalib ani waxay u muuqataaba abi aalib inuu leeyahay miidaan i garanaynin aniga aabbahay waa kuma waxa weeyaan cabdulmutalib ninkii abraham hor istaagay ee dhahay lilkacbati lilbeyti rabbun yaxmii kacbada ilaahay baa ilaashanaya innagana waa inaynu nafteena difaacnaa ninkii dhahay weeyaan ee abraham ka hortegay subxaan allah miidaan garanin fihir baa aniga awogay ah oo quraysh isku keenay saa inuu leeyahay bay aniga ila muuqataa subxaan allah adiga markii abi aalib markii arrimahaas ay ula imaadeen nimankaasi wuxuu ku dhahay nebiga iigu yeedha nebiga loogu yeedha wuxuu ku dhahay adeer soo fadhiisa halkan wuxuu ku dhahay adeerow iska taxadar is ilaali nimankii quraysh 3 jeer bay yimaadeen oo markii saddexaad arrimahaas ay ila yimaadeen adeerkaana wuxuunan xamilaynin wuxuunan tabartiisa haynin ha u soo jiidin kadib nabigu sallallahu alayhi wasallam uu foorarsaday isagoo adeerkii ka edebsanaya oo dhageysanaya hadalkiisa oo dhuganaya subxaan allah markaasuu ku dhahay adeerkii adeer diintan yar ay kugu haystaan maabad iskaga noqotidba markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay adeer cadceeda hadday midigteeda keenaan dayaxana ay bidixdeeda soo dhigaan si aan diintan uga laabto ma ihi aanu mid ka laabanaya adeer maxay ka micno tahay cadceedda oo midigteeda lasoo dhigiyo bidixdeeda dayax maxay ka micno tahay waxay ka micno tahay cadceeddu markay soo baxdo waa marka aad arkayso quruxdii adduunka waa marka aad arkayso haweenkii caruurtii dahabkii hantidii daarihii waxyaabo qurux badan ayaad arkaysaa oo adduunkan yaala markay cadceeddu soo baxdo habeenkiina wixii markii quruxda aad soo aragtayna habeenkii baa soo galaya oo madoobeynay yacni habeenkii iyo maalintii iyo waxayba adduunka oo dhan wixii yaalayba wuxuu ku dhahay nabigu sallallahu alayhi wasallam bidixdeedii midigteeda nusna haddii adduunkan nusna haddii midigteeda la dhigo nusna bidixdeeda si aan diintan uga noqdo mid ka laabanaya ma ihi abti adeer arrintaas iyada ka war la'aw subxaan allah kadib nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ooyey عليه الصلاة والسلام مركو أوهي النبي صلى الله عليه وسلم أنا جو أوهين تيساس النبي صلى الله عليه وسلم وحن كلا دح بحياة إنه لي أدر مركا خديجة دمتي ورتيران تي هذا السكري خديجة مركا دمتي أديجا مقرني ساي بوسكي دي بوحي أديجا السكري بيستاجي أديجا أيا قال دنيا عدو جي قال دجالمي adiga ayaa adeer igu dhahay horay u soco hana ka laabanin go'aankaaga wado waxaad rabtay inaad wadato aduu ahaa ninkii igu dhahay maanta markay arrintu igu cakirmatay miyaad adeersaan leedahay subxaan allah maalintu dhashay ama muuqaalku dhalay ee kan inoo xigi doona halkaas baynu kasii bilaabanaynaa biidni illaahi albaari haddaad ilaa halkan soo gaadhay muuqaalkan fadlan hanaga ilaawin taageeradiina kala duwan waxay ii tahay aniga gaar ahaan dhiirigelin si aan gaadhiga u kaxeeyo dhammaantiin ilaahay dartii baan idiin jecelahay hore u socda ku saliya nebiga xilligay idiin tahay oo barakaysan muuqaalkana sheergaraya insha allah si ay walaalihiina kale uga faa'iidaystaan inoolana galaan safaradeenna inoo soo socda insha allahu tabaaraka wa tacaala xilligay idiin tahay oo wanaagsan meel walboo joogtaana allaha أذيعي فيكم ربي باكر إلي قدرك يا إمام الأنبياء دتك أو إذي دمانتك أذيع قرسي دينته أذيع كرمين نبيو أذيع